soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ahay Ibrahim Aadam muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay waxaan ka qayb gali doonaa eventigaas oo ka dhici doonta magaalada Nairobi eventigan waxa lagu falanqeyn doonaa ama looga hadli doonaa cryptocurrency waxaana ka soo qayb gali doonaa rag aad u culus marka waxaan rabaa muuqaalkan inaan kula wadaago eventigan iyo waxyaalaha lagu soo bandhigo sidoo kale ragga ka soo qayb gala insha Allah taala muuqaalka waad ku arki doontaan haddii noo suura gashaan insha Allah waraysi yaraan ka qaadi doonaa waxaana wax ka weydiin doonaa qaabka maaragtay investmentiga loo sameyn karo iyo cryptocurrency-ga maaragtay heerka ay marayso ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta أنا هنتي راس عبد الله محمد جعله حديات كلمة السوق لسان أنا مرتبي وكم قسانة كلمة قسارة مركا كان الله ما مركا تكنيكال قسارة والله عقنا قلي أنا أبغى أقول قلي ماشي توب ستوب لوس وكل عضو قلي أما كون كنو داتو قلي ممكن قسارة لكن قسارة وليكم أنا قسارة سوق كلمة وأنت حتى في وبقول كم سجاشة ما كانوا حد يقول هاي تحدث كمان نمبر 1 that's number 1 طلع بس نعاون حالة تحضر كو اكسشينج مكان فرنسي حالة تحضر لابو والت مكان فرنسي حالة تحضر فريسكا اللي يقدر يصير عليه مال بقرا سدح حدين العقد ادريس اما عليه بيوصل درايو ادريس كائنات كتحضرتان انت اسوا بيسكا لابو قفكه تلسوب هي ميل بدل مقالة كده ودا جلو سيدا اني يوتيوب جي وحياه بدل مسؤول جديد inkastoo waxyaabo badan aan soo wado solo muuqaalo badan oo sameeyay iyo Soomaali kale tiro badan af English ada fahmaysa dad badan oo luqada English ku hadlo af Carabi luqada kala duwan waad heli kartaa horta waxaan waqti kala geliyo suuqa faa'iido ma leeyahay yes uu leeyahay laakiin haddii wixii aan waqti gelin waa dhibaato soo roon waxa sameynaysaa suuqa waqti gelin number 2 exchange exchange tirada ka bataan depends on waqti ka joogtid caawa waxaan insha Allah tirada waxyaabo badan nasla arno exchange kuwa basic ah كريبتودا خسارة يفيدها خسارة كلمة قفنا كل قبل له قف أسوق صحن بخسارة بعمله له سواء كان خسارة أو تكون فائدة اللي بناتو information أو نعمله خسارة هو محاولة تحقق معها إلى تعقد الفلان محاولة قف إنه هو تكستين فرصة وحقق له ما تستري خطأ كلها باسمه قدنا مسلمين ولكن بس دول مسلمين نمبر 3 قفك إنه أوجاده وحق الصميمة قفك وين على هي يعني إنفستر معنا هاي بس تريدر معنا هاي بس الصوت فور تايم إنفستمنت العجلة صاروا كلا الواشربه أمين العجلة دورتان قفك مركب الصميمة باي ويا فروم صمك عليه وين الصوت تاعي وين على عليه محن إنفستر معنا هاي تريدر معنا هاي مسؤول سوق على قف وقته هاي سلو مستر شعيب حواي هذا وفرح سنة لكلن كعاو إنه حرب سؤاله إن أنا كويديو إن دور سؤاله إن كويديو وهو رئيس بوجا عاو صوب عندك إن قفك مركب بوجا يبسدو يعني ما كيف ليه هاي إنه كوتش هلا كله يعني جيم كجربس كمان قفك بلاوي هاي ما كيف ليه هاي إنه كوتش هلا إنه مقالة يوتيوب دعوة ده كلام كيف ليه هو كرت خرال وحول بعضك صار سمك في الجرينيا training sidoo kale wuxuu garanaya laakiin wixii markay qoraal yihiin practice u baahan yihiin so hadii uu qofku muuqaalo ku darsado code uu kaga maarmi karo soo garba xasaasana ay tiisan karo sa training raay karo laakiin training ka asal practically uu baahan yahay qofka soo ama inuu youtube ka daawado u baahan yahay youtube kana muuqaalo free ah ku jiro oo ilaa 280 ilaa hadda soo jiro si fiican okay su'aasha labaad waxay tahay inkastoo ka dhawaajisay diet-ka qofka ma ka saxay yani qofka yani hal dhaha inta badan 80% diet so diet ka buugam kaga filan kara yani وكفر كريك اوكي سؤال كل ربنا كويدو waxay tahay way u dambeeyay crypto ku jirtay crypto sanadkii kusoo birtay fashila marka 2020 ana 2020 okay 2020 kusoo birtay coinanka is leedahay qofka hadda uu maalgashan karaa adii dabcan inkastoo maaragtay financial advice aysan ahayn inta badan laakiin haddana coinanka is leedahay
waqtigan hadda waqti xaadirkan la taagan qofku ka faa'iideysan karaa برضو في هذا كان ماركت كأد وسرية عودوا كجرا وحب عودوا أنا ممكن في المساء ممكن بدنا وهيستحيل إذا أنا كلا على وحيل ده وهلست بدنا ولا جلو يعني for me personally بفضل عصب إنه هذا جلو كلامه تليان unless long investor اللي هاي هذا long investor هاي كوين كسيف كاسيد إثيريوم BTC في سولانا كمان. markii koo adiga aad bilaabaysay ama ku soo biiraysay suuqan crypto ma iska tijaabisay mise cilmigiisa soo baratay lacag ilaa intee la eega marka hore ku tijaabisay واسكت تجارية أتيكي نام لو بقول دور تجارية مركي هورة والحين جالس 2021 كي بوهران كانوا هيجعل هاي دين واحد هاي كون يلا هذا حد كبحاجة سيد الداش يو فايل كون وين شو سجلي سيف يعني يجي فايدين دين وحيقول هاي نعدي FTX أو دول كي لقى شيء مركا نعدين بدنا ويسوي جوجي مركا حلي داس كونياشي جري حتى توتين معه so كون يلا هذا ده أنت كتريد كيلين وحين كويس كويس بحيه يعني حلي داس كفايدة صح اوكي استاذي هذا وما سنتهاي مستر شعيب thank you so much thank you brother thank you سوري هذا صاحب يال مركه ليتو استاذ عبد الغني سودو ودوها بالايه لو يخان انت بدن ابيات استاذ سودو انت بدن استاذك wuxuu investment ku sameeyaa cryptocurrency-ga iyo sidoo kale to stock-ga استاذ crypto-da waxaan rabaa su'aasha aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay cryptocurrency-ga qofka shaqo ahaan ma ka dhigan karaa yani intuu u fadhiisto qol u fadhiisto shaqo ma ka dhigan karaa lacag ma sameyn karaa والله to be honest with you hadii aan runta ku sheego dhalinyaro badan oo waxaa jira ay ku adagtay Afrika markay joogaan shaqooyinka inay helaan hadii qofka computer uu haysto telefoon uu haysto internet uu heli karo waxaan qiyaasi karaa qofkaas in ay u saamixi karto crypto in noloshiisa ay bedesho waxyaalaha uu ka ganacsan karo waxaa ka mid ah projectyada cusub barnaamijyada cusub ee yimid badanaa barnaamijyada oo waaweyn ee koray sida hadda bitcoin oo kale markaa $100 gelido inay 100 ku darsanto ee $200 noqoto waa bitcoin inay 100,000 kale ay jibaaranto waa adag tahay marka hadda waxaa u malaynaa bitcoin 1.7 trillion ku jirto inay 2x samaysay 100 ku darto waa inay 1.7 trillion soo gasho laakiin mashaariicda small cap-ka ah dadka Afrika joogo kale waxay gaadi karaan mashaariicda cusub ee hadda soo baxaya oo lacag 10 milyan oo ka yar ay ku jirto laakiin la isku hubo VYOR inaa research fiican ku samaysid aad hubisid tiimkaad hubinaysaa projectigaad hubinaysaa waxaa hubinaysaa xataa hal mar inta crash uu ku dhacay pullback ee dhacday oo mashruucii hoobtay kadibna soo kabtay mis celisay meesheedii ku laabatay mashruucaasoo kale haddii aad hesho marka midda labaad rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay qofku markuu day trade uu sameynayo kale sidoo ayadana macnaha maalinkii ilaa meeqa camal uu sameyn karaa haddii lacag fiican uu geliyo kale ama lacag yar anigu shakhsiyan investor aan ahay waqti badan uma hayo inaan chart fiiriyo inaan la socdo muxuu ahaa price actionka inaan muxuu indicator la saarto Fibonacci muxuu sameynayaa muxuu ahaa moving average siduu yeelayaa waxyaabahaas oo dhan ma fiir laakiin investor aan ahay waxaan sameeyaa project oo very low ah meel hoose joogaan raadsadaa badanaa discount ah waxaan isku aqaanaa value investor project discount yaa raadiya meel hoose ka soo raaca weliba suuqa marka uu dhiig baxayo xilliyadan oo kale maaha laakiin haddii aad day trade rabto waa inaad technicalka iska dhistaa technicalka inaad si fiican u fahanto waqtiga hadda lagu jiro waa bull run qof walba technicalkiisa waa fadhiya laakiin waxaa imaan doona bear market oo mar walba suuqaas aad lacag usoo doonato laga yaabo boqolka alla soo shartagtay in lagala kaco marka waa farsamadaad inay fadhidaan technical qofku waa inuu aad uga xooganaadaa eventiga waxaa kusoo bandhigayseen barnaamijkan oo la yiraahdo Litavo marka Litavo barnaamijkaagan muxuu yahay game noocee waaye waxaan arkay inuu maaragtay aad game maaragtay noo soo bandhigtay marka qaabku u shaqeeyaa muxuu yahay inaan xarna ayadana warbixin naga siiso Litavo haddii aan ka waramo saaxiib waa mashruucii ugu horeeyo crypto ah oo gaming ah oo hadda aan kusoo bandhignay magaalada Nairobi Kenya mashruucan waxa kaliya uu ka hadlayo waxa ay tahay inaan crypto samayn karno halkan waxa ku naqshadaynay kalarada u jeedid waa kalarka rocketka madfaca baxaya aba gantaalka iyo waxa halkan kusoo bandhignay bakayle labadan aan saddex gelinay taasaan waxaan ku sameynay marka game la yiraahdo Litavo loogadeena waa qaabkan kalarada aan qaadana waa kalarka goldiga ama dahabiga jaalaha ah iyo night blue-ga ah gamekan wax kale ma ahan waa game fudud anaga crypto naqshadaynayna qof waliba oo cryptodeena qaadan doona si cryptodeena uu ugu guuleysto waxa sharda inuu nambaro doorto nambarada markuu doorto nambarana uu codeeyo qofka hela codadka ugu badan qofkaas ayaa guuleysan noqonaya
caawana masraxan aan taagannahay wiil ayaa guulaysta noqday markii 3 game la ciyaaray wiil ayaa soo baxay wiilkaasna caawa lacag kaash ah ayuu halkan ka qaatay aad u mahadsan tahay intaas rabay inaan maaragtay aan ku weydiiyo barnaamijkan insha Allah taala waxa waaye waan ka qayb qaadan doonaa halkan ayaana soo dhigi doonaa linkiga ama QR code-ka maaragtay aad ka raaci kartaan si aad game ku dheeshaan aad u mahadsan tahay adiga mudan nin zaciima ninka Nairobi ugu soo dhaweeyay marka insha Allah litaba inoo balan haduu la yiraahdo waxaan xaqiijin doonaa inaan lacagta bulshadeena dhexdeeda ku hayno ee bannaanka inaga aadin waana kirtadii ugu horeysay ee qof Soomaaliyeed uu sameeyay insha Allah haysadeen qof Soomaaliyeed sameeyay laakiin waxaad istiraahdaa Cabdiqani iyo projectkan ay keeneen ma awooday in bulshada uu ku dhaxayo muxuu ahaa investmentigooda كان أنا كورجينا thank you brother هذا كان مدلنا ما تنسى markii investment lagu samaynayo cryptocurrency maxaa laga fiiriyo maxaa laga eegaa what's investment waa asset kambani hadduu lacag badan uu leeyahay sida hadda bitcoin oo kale BTC 1.8 trillion dollar ay leedahay oo maalgashan kartaa waxaa fiirisaan xilliga la joogo kuwii hadday ii sheegay waxaa soo raacaya toddobadan oo mar walba sunan ay ku jirto fifth state la yidhaahdo ay ku jirto Cardano, Ripple, Toncoin iyo Aurel ay ku jiraan. Volatility waxa waaye wax saan u socdo waaye waa hirka kale waaye waa volatile waaye siyaasadda iyo habeenada tusaale ahaan galtaalada ay soo dhaweeyaan aysan soo koreen oo kale masiiba ku dhacday hal mar ayaa soo koreen oo waa taas volatility iyo decentralized wax la yidhaahdo qofku control ma maro waxaa kaloo jiro muhiim waxa la yidhaahdo halvingka 40 sano baru dhaca halvingkaas hadda bishii abil uu dhacay xilligu bitcoin saaran ku dhacay halving waa dhaca ashiisa bis guys let's stop waa soo gudbinayno inaa wax badan u jiro maasantiin halving wuxuu dhacaa every 4 years wuxuu u dhacaa in marka la soo mayn gareeyo ama la soo qabto digitally lacagtii lagu heli lahaa boqolkiiba 150 looga dhigo si ay waxaa soo dhaxay scarcity oo ah in la waayo hadda tusaalahaan Soomaaliya sokor iyo bur laga weyn jiray marka laga waayo price kor u kaca marka ay dhacdo halving uu dhacdo kor u kaca hadda Donald Trump waxa la daarinayaa 20 bish waana cadeeyo inuu yahay Mareykan wuxuu noqonayaa the center of cryptocurrency noqonaya mar walba ogsado cryptocurrency kama market wuxuu ku xiran yahay movement-iga siyaasadda waddanka Mareykanka actually waxay yiraahdaan market waxay yiraahdaan marka Mareykanka uu hindiso rest of the world happy ayaa ku dhacay financial way when USA economy is rest of the world gets colder marka waxaan ka wadaa ninkan soo socdo hadda la dheerin doono ilaa uu qiimaanay iyo sanadka ugu horeeyay waa la dhergiya ani waxaan dhihi lahaa qofkii lacag haysta inta hadda sheegay toddobadii lacag sheegayso waan arki doontaan aniga Cabdal haddaan tagno to next week haddaan tagno Abu Dhabi waan ka qayb galno the biggest conference aan qayb galno waan arki doonta dadka imaanaya Elon Musk meel yimaaday Eric Trump meel yimaaday madaxweynaha El Salvador maxaa lagu soo celinaa waa waddanka keliya oo hadda xilliga laga isticmaalo maxaa yidhahdaa marka waxaan ku dhihi lahaa haddii lacag fiican haysan dowladda lacagdana la yidhi lacagtaada bitcoin ku harayso waxaan rabaa markii aan ku noqdo faa'iidada buuggan aad keenaysaa sidiidka aad arkaysaa kow maxay tahay faa'iidada ku jirto buuggan kow waxaad ku baranaysaa nuuca jirkaaga ayaad ku baranaysaa body type-kaaga ayaad baranaysaa jirka bini'aadamka wuu kala duwan yahay adiga iyo aniga isku jirman yihiin waa kala shay aana kala duwannahay 3 kategoriga galaan kategoriga koowaad lagu magacaabo ectomorph kategoriga labaad lagu magacaabo endomorph iyo kategoriga saddexaad lagu magacaabo mesomorph saddexdaas ay soo hoosgalaan saddexdaas kala baxsan nuuca koowaad haddaan u laabto waa ectomorph waxaa weeyaan nuuc ay ku adag tahay in uu miisaan isku daro metabolismkooda wuxuu shaqeeyaa high metabolism weeyaan waa dadka dhaqso kaloriga guraayo dadkaasi waxaa lagu magacaabaa ectomorph waana dad ay u fududahay inay miisaanku ka daado maxaa yeelay metabolismkooda maadaama saayid u shaqaynayo kalorigii intake uu sameeya ayaa dhacaysa inuu gudbo jirkiina uu markaa noqdo inuu jinaana ku dhaco maxaa u baahantaa marka inaad cunto badan cuntid oo maxay ahayd kalorigaaga joogtay sida u baahanta kalori surplus aan loo yaqaano inaad joogtida u baahantaa
نوع اللبات ومسعود ونوع ناتشورالي تلك المقيسة مفيدة قف حاجة حوجات هاي محلات الدين سووا أجيب هذا ولا ما أجيب صار ناتشورال سيستم وعصالهم على وين السيدي بكاس ميتابوليزم ونورمال ميتابوليزم طبعا لا مش غير كلام حلي ودور مستشفى سدري كلام حلي ودور وسدري كلام dadka waxaan u magacaabaa mesorof iyagana kuwa waa kuus oo jirkooda ugu dhammay nooca saddexaad ugu dambeeya waa nooca surroundinga jirkooda uu jilicsan yahay wareegsan yahay oo runta jirkooda ugu badan tahay dadkaas metabolismkoodu waa very slow wayna ku adag tahay in ay miisaan iska dhimaan cuntada ay cunaan maxaa dhacaya kolligii oo konsum garayo jirku wuu ceshanayaa marka maadaama uu metabolismkiisii hooseeyo ma gudi karo maxaa dhacaysa jirkii in baruurta ay ku barata ayaa dhacaysa saa laakiin jirkaasna waa kaga hadla maxaa soo hoosgalaya marka cudurkii marka ogaateen daawadeedii marka waa inay timaado waxaa waaye waxaa dhacaysa marka noocyadaas trainingkooda waa ku xusan qaabkii training garan karaan oo talabita bixinaa waxaa ku xusay cuntada isticmaali karaan mar walba loo kala qaadayo haddaba qof jirkiisa caadii haysa isku weyn intaan faa'iida buuga intaas ayuu ka kooban yahay mar walba waa anigeeda dhaha mararka qaar waa sliibka mararka qaar waxaa la yaa waxu qabtaa حاجة على الأخر والمدير مرة أنا حكي أنا ولد العيال عندك أنا معنا دغني نكست حاول ورد Thank you so much.